kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idilkiinba meel kasta soo aad joogtaan kusoo dhawaada Ohio Somali TV magacaygu waa Bashiir Taajir waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno ciyaaraha xagaaga ama Columbus Indoor Soccer Cup-ka oo muddo aad u dheer ka soo socday laguna qabanayay magaalada Columbus barnaamijka haldoorka bulshada ee Ohio Somali TV waxaa marti ku ah Cabdiqani Jaamac oo kamid ah guddiga qabanqaabada iyo qabashada ciyaarahaas Cabdiqani Jaamac kusoo dhawow barnaamijka haldoor Ohio Somali TV وما سنتهي بشير وأنا كده وهاي Somali TV Ohio waxaa halkan ku soo dhaweynayna dhammaan ciyaartooyda ka kala imaan doonto dhammaan stadiyada dhammaan Mareykanka iyo Toronto Canada sidoo kale kaabkan waxaan u diyaarinay inaan ku qabanno sanadkan oo ka duwan sanadyadii kale maadaama 20 sano uu jirsaday waxaan sameynaynaa qabanqaabadii ugu sareysay aan ka qaban lahayn magaalada Columbus Ohio si aan u soo dhaweyno kooxaha ka kala imaanayo dhammaan stadiyada kale iyo adduunka nawaaxigiisa waa tahay Cabdiqani barnaamijkan ciyaaraha Columbus Indoor Soccer Cup waxay soo socdeen muddo dheer sida aad xustay muddadaas ay soo socdeen maxaa faa'iidooyin oo laga helay barnaamijkan kaabkan waa kaababka ugu weyn oo lagu qabto dalka Mareykanka gaar ahaan xilliga xagaaga waxa halkan ka soo baxay ciyaartooy badan oo u soo dheeshay hadartan national teamka Soomaaliya uu soo saaray kaabkan waxa kamid ah ciyaartooydii dhalinyarada yararka ahaa ee Umarani iyo Cabdi kuwaas oo noqday ciyaartooyga ugu fiicnaa dalka Soomaaliya markay noqoto national teamka sidoo kale waxa ka soo baxay dhalinyaro badan oo ka kala dheedheeshay jaamacadaha dalka Mareykanka iyo kooxaha kale oo yaryarka ah Mareykanka ka dheelo waana kaab sanad walba lagu qabto magaalada Columbus Ohio waa tahay Cabdiqani waxaad xustay in qabashada ciyaarahan faa'iidooyinka laga helay ay kamid ahayd in ciyaartooy fara badan aad soo saarteen kuwaas oo qaarkood ay u gudbeen kamid noqoshada ciyaaraha ciyaartooyda xulka qaranka Soomaaliya marka laga tago taa ma isleedahay sidii ay ahayd barnaamijkan inuu u soo saaro ciyaartooy xirfadlayaal ah oo ka qayb gala kulamada iyo ciyaaraha kala duwan ee dunida daafaheeda ka dhaca arintaasi xoogaa waad ka gaabayseen ma la is oran karaa waa nasiib daro in kaabkan uu naga dhex galo xanuunkii weynaa ee COVID-19 ka ahaa waa xaqiiqa su'aashaas ay weydiisay Bashiir haddii uu jiri lahayn COVID-19 maanta 5 sano ayaa la sii ciyaari lahaa oo wuxuu gaari lahaa oo 25 jirsan lahaa kaabkan waxaan sameyn lahayn production badan oo ka soo baxo oo dalka iyo dadka wax u taro xagga sportska Soomaaliya ka wax badan u qaban lahaa haddana saasay tahay anaga waxba ka qaban karin xanuunkaas COVID-19 koo yimid ayaa 5 sano la aligeed naga habsaamiyay Bashiir Cabdiqani marka laga tago kooxaha ciyaaraya yaa kale oo ka soo qayb gala ciyaarahan aad qabataan oo soo qabanayseen 20kii sano ee u dambeeyay waxa ka soo qayb galo ciyaartooydii waaweynaa ee Soomaaliya gaar ahaan kuwii u dheeli jiray national teamka iyo Serie A oo mar walba iskugu imaado magaalada Columbus Ohio waxay u tahay faa'iido gaar ah ciyaartooydii Soomaaliya haday ahaan lahayd kuwa soccer-ka dheelo iyo kuwa dheeli jiray ciyaaraha fudud sida orodada basketka iyo wixii la halmaalo oo ciyaar aba si ay ugu kulmaan magaalo waxay weeye magaalada iskugu imaadaan ama madliso waa magaalada Columbus Ohio ayagoon isku booqan karin mid kastaba statekiisa qarash badan uga bixi lahaa haday mid walba midka kale inuu booqdo u damci lahaa halkan ayay ku kulmaan qayb weyn ayayna ka yihiin dhigista Columbus Soccer Indoor Cup ayaga laftirkooda qayb ka ah ciyaartooyda Soomaaliyeed marka aad fursad u heshaan inaad isu keentaan maqaawiir sportiga ah ama dad waaweyn oo magac Soomaaliya ciyaaraheeda ku lahaa is aragga marka laga tago ma jiraan wax talo iyo tusaalooyin ah oo aad ka qaadataan haddii ay jiraan ilaa haatan maxaad ka hesheen faa'iidooyin inaad raggaasi la kulantaan faa'iidooyinka ugu badan ayaa waxay tahay maadaama ay dheelayaan dhalinyaradii Soomaaliyeed ee da'yartayd ama halkan ku kortay ama halkan ku dhalatay waxay la falgalaan ciyaartooydii waaweyneed ee Soomaaliyeed maadaama ay daawanayaan waxay siiyaan talo iyo tusaale ciyaartooydaas yararka ah oo mar walba ka qayb qaadanaysa tournamentiga waa maray daawanayaan ciyaartooydii hore waaweynka ahayd iyo mar ay la talinayaan ciyaartooyda yararka ah marka halkaas tusaale iyo talaba waa meel ay madliso mar walba ay iskugu imaadaan meeqa koox ayaa sanadkan ka soo qayb gali doona maxay kala yihiin qayb heeb ay kala yihiin 16 team oo loo yaqaan prime teamka waa kooxaha koobka ku tartamo xoogiisa
oo dhalinyarada da'da dhexe ah sida 20 jirada iyo wixii ka koreeyo ama 18 jirada wixii ka koreeya ah iyo 13 jirada Soomaaliyeed ee yararka youthka loo yaqaano oo ah 8 kooxood iyo da'da waaweynka ee Somali National Team ku soo dheeli jirta ama sida loo yaqaano odayaasha ama jilba culusta ciyaartooyda cuslaatay oo dadka hadda intooda badan ay u badan yihiin kuwaas oo ah ayagana 8 kooxood ayaa ka qayb qaadanayso waa 8 koox iyo 8 koox iyo 6 iyo 10 koox waa arin aad u wanaagsan in intaas oo dada la isu keeno oo ciyaartooy kala duwan isu keenista dadkaasi ma aha hawl sahlan iyo qabashada barnaamijkan dabcan dhaqaale ayaa ku baxa yaa idinka taageera qabashada barnaamijkan kaabkan 20 sano uu soo socday waxaa jiro dad shakhsiyaad ah oo naga caawiyo gaar ahaan business ahaan waxa ugu horeeyo nin la yiraahdo Russell Flinginger Group Law oo mar walba asaga garabka naga buuxa ah hadana koobkan wuxuu ku tiirsanaa ummadda Soomaaliyeed maadaama uu ahaa kaab ka yimid community-ga wuxuu ku socday 20 sano la soo dhaafay hadana uu ku tiirsan yahay waa community-ga Soomaaliyeed ee degan Columbus Ohio waa tahay maxaad isleedahay sanadkan waad ku soo kordhin doontaan marka loo eego qabashada ciyaarahan sidii hore aad u qaban jirteen ma waxba ka bedelan mise maadaama gaab uu galay oo hakad galay ma waxba iska bedelay qabashadiisa mise sidii un bay ahaan doonaan horta waa wax aad loogu farxo soo celintiisa anagana waxaan ka bedeli doonaa waxa weeye inaan keeni doono dad khubaro ah kuwaas oo wax kala siiyo talin iyo tusaale kooxaha imaan doona magaalada Columbus Ohio koobkan sanad walba waxba loo qaban jiray theme waxa la dhaho lahaa oo ujeedada sanadkan ugu weyn waxa weeye inuu 20 jirsaday oo la rabo in qof walba Soomaali ah uu qayb ka noqdo dabaaldegiisa iyo fantasiyadiisa maadaama xilli dheer soo socday haddana meesha waxaan ka marnayn inay imaan doonaan niman koochacha kuwaas oo siin doona talo daawan doono ciyaartooyda ka soo baxdana qayb kamid ah u qaadan doono dunida dacaladeeda hadduu Ilaahay idmo maadaama ay Soomaali badan ay ka kala imaanayaan gobolada Mareykanka oo ka badan kumanaan waxa weeye Soomaalida ganacsiga ay ku leedahay Columbus Ohio waxa laga dareemaa saxmad aad iyo aad u ballaaran sida makhaayadaha meelaha ganacsiyada oo meheradaha kale in ay ku sameeyaan uplifting ama ay ku sameeyaan ganacsi badan ay ugu soo kordhiyaan magaalada Columbus Ohio taasoo mar walba laga dareemo sanadkiiba mar koobkan ayagu la socdaa arintaas ugu dambeyntii maxaad isleedihiin mustaqbalka aad rajaynaysaan in ay ka soo baxaan qabashada ciyaarahan oo maaragtay faa'iido u leh bulshada qaybaheeda kala duwan ciyaarahan laba ujeedada aan qabanaa haddaan nahay Columbus Indoor Soccer Cup marka koobaad waa inay isku arkaan ummadda Soomaaliyeed oo ku meel ay ku midoobi karaan isku waraysan karaan ku ciyaari karaan xilliyada farxadda ku qaybsan karaan iyo in aan ka ilaalino dhalinyarada wadooyinka xunxun sida daraaga iyo wixii la halmaala marka waxa intaas dheer oo faa'iido ka soo dhaxbaxayso labadaas oo la isku daray faa'iido isku bedelaysa in Somali National Team uu heli karo ciyaartooy ee u soo baxda dalkeenaga Soomaaliyeed ama kooxaha kale adduunka ka dhisan ay kala qayb galaan waa tahay kaasi waxa uu ahaa Cabdiqani Jaamac oo kamid ah guddiga qabanqaabada ciyaaraha Columbus Indoor Soccer Cup ama ciyaaraha xagaaga oo sanad walba lagu qabto magaalada Columbus inkastoo hakad uu ku jiray dhowrkii sano ee ugu dambeeyay barnaamijka anigoo Bashiir Taajir ayaa dala socodsiinayay tan iyo kulantideena dambe sidaas iyo nabadgelyo